toban nooc oo ka mid a dumarka ilaahay ayaa nacladay. naxariistii baa ilaahay ka dheereeyey, naxariistiisuu ilaahay ka dheereeyey. cadaab daranna waa leeyihiin, jannana ma urin doonaan buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam. muuqaalkeenna maanta waxaan kula wadaagayaa 10 nooc oo gabadha walaasha muslimadda la doonayo inay iska ilaaliso si ayna ugu dhicin 10ka nooc mid ka mid aysan u noqonin. dumarka walaalayaal, ilaahay ayaa tabaaraka wa tacaala ila abuuray. waxauna ilaahay u abuuray ragga, waxauna abuuray qurux midii ugu wanaagsaneed ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay inay ku anfacaan ragga. sidaa darteeda ilaahay tabaaraka wa tacaala dumarka waxa uu ilaahay siiyey xuquuq, waxa sidoo kale ilaahay dul saaray waajibaad. muuqaalkeena maanta waxaan kula wadaagayaa 10 nooc oo dumar ah oo ilaahay naxariistiisa ilaahay ka dheereeyey, jannana aan geli doonin. fadlan intayna muuqaalka guda gelin, haddaad nagu cusub tahay fadlan YouTube channelkan waa cusub yahay inuu meel sare gaaraan doonaynaa oo dacwadda al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wanaaga isku furno, xumaantan aan isaga rabnaa channelka u furnay oo dacwadda ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ku fidino. adiguna ka qayb qaado dacwadda oo daaci noqo oo khayrka walaalka gaarsii si uu uga faa'iido. laga yaabaa gabar walaasha muslimada in muuqaalkan gaaro oo arrimahan ka mid ah 10ka noocan soo wada muuqaalka ku arki doono, ilaahayna uu ka badbaadiyo, jannana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu geeyo, adigana miisaanka xasanaadka ilaahay uu ku saaro. sadaqa jaariyo marka dhimatay markaan tan noo sheegayna ajarkeedu ku socdo uu kaaga dhigo. soo dhawaada walaalayaal, walaalkiin Maxamed Amiin, YouTube channel hada wasana waa Istiqaama Media. fadlan like, share iyo subscribe. barakallahu fiikum, jazaakumullahu khayr. 10 nooc oo kamid ah dumarka ilaahay sidaan hore muuqaalka horriciisa ku sheegnay, ilaahay naxariistiisa ayaa ilaahay ka dheereeyey, jannana ma urin doonaan. ilaahay nacladiisa ayaana ku dhacda. midda koobaad waxaa la dhahaa annaamisa oo ah midda halkan xirimaha midda iska jarta, iska xiirta ama qayb ka mid a xiirta kadibna kuwa feeg ah ku bedelato oo maartay saarta qayb ka mid ama xiiraysa ama kulliga wada xiiraysa. annaamisa baa la dhahaa. mutanamisa ilaahay waa naclada. mutanamisa waa maxay? midda u samaynaysa, tintay ka xiiraysa, u jarjaraysa, u hagaajinaysa xirimihii, taana mutanamisa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. iyadana naclada ilaahay baa ku dhacdo, naar baa ilaahay u ballan qaaday hadayna toobad keenin. waa midda labaad alwaashima. waashima waa maxay baa la yiraahdaa? waa gabadha intay irbad isku durto jirkeeda meel ka mid ah duraysaa, markaasay kalar ayay maraysaa. waa taatu bay samaysanaysaa, kalaraan jirin, muuqaalaan jirin, bar aysan lahayn oo been ah, yaa bar aysan lahayn. dhimbisha dumarka jecel yihiin oo aan lahayn oo been ah way isduraysaa, markaasay weliba kuxul iyo kalar iyo waxbay marinaysaa si loogu maleeyo inay dhalmo tahay. ilaahay abuurkiisa ay bedelaysaa, naclada ilaahay baana ku dhacdo. midda saddexaad waxaa la yidhahdaa waasila. timaha ayay timo ku daraysaa, tima buruuka, zamankan buruukaan dhahnaa inagu, timaha ayay ku daraysaa. nabiga wuxuu yidhi la'anallahu alwaasila, ilaahay hal naclado, naclada ilaahay ha ku dhacdo. midda timaha dalbata in loo xidhiiriyo iyo midda u xidhiirisaba ilaahay nacladiisa ha ku dhacdo. midda afraad almutafallijaat, mid kuwa timaha kale ilkahan ka wada, ilkaha kala fogeysta, ilkaha qoriin ku sameeya ilkaha, ama ilkaha fanax beena sameeysta, ama ilka waxaan qalliinku ay wax ku sameeya kadibna ilkahooda ilka qurux badan ka raadiya. ilaahay abuurkiisa ay bedelayaan, naclada ilaahay ayaana ku dhaca. midda shanaad waa midda ka cadhaysiisa ninkeeda ku qaylada badan ee muuqa badan ee afar ninkeeda ka cadhaysiisa. sidoo kale markuu wuxuu xaq ugu lahaa ma ugu dalbadana u diida, naclada ilaahay ayaa ku dhacda. habeenkii ay tiraahdo nabiga sallallahu alayhi wasallam mid intuu xaaskiisa kamid dumarka xaaskiisa ninka oo u yeedho oo diido, naclada ilaahay ayaa ku dhacda habeenkaas oo dhan. haday sidaa ku dhimatana naclada ilaahay ku dhacda, jannana ma uriso, naxariista ilaahayna ilaahay waa ka fogeeya. midda lixaad waa kuwa qubuurta booqanayaan mar walba. qabrka lagama karaba qubuurta, qabriga bay ku sii socdaan, qubuurta bay ku sii socdaan, ay tagayaan. kuwaana naclada ilaahay ayaa ku dhacda, naxariista ilaahayna waa ka dheereeyay, jannana ma urinayaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. midda toddobaad waa kuwa naaxiyaadka qaylada badan. maxay ku qayliyaan? meydka markuu meyd dhinto ayay si qaylo oohin maarata dheer
codka kor loo qaado oo la qayli gablamaye ba'aye hoogaye la furto la jabsado qaylada nooca kuwa jabsadana naxariista ilaahay waa ka dheereeyaa kuwaas nacalada ilaahay ayaana ku dhacda naar ayayna galeen hadayna ka toobadkeenin buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam kuwa kalena waxa la yiraahdaa waa kuwa isqurxiya maxay isku qurxiyaan ragga timaha ayay madaxooda kor ugu taagaan waa caariyaad yaa mutabarrijaad dharkana waa iska dhigeen oo dhar badan ma wataan madaxana timahooda saas ay kor ugu taagaan ragga ayayna mar walba isku qurxiyaan nacalada ilaahay ayaana kuwa ku dhacda maxaa sheegay naamisa iyo waashima naamisa waa mid maartay xirimaha xirta waashimana waa mid tattoo iyo wax marsata sidoo kale durata bil iyo wax samaysata mid saddexaad waa asla mid timaha xiriirisa mutafallijaad mid fanaxsan istilka kala fogeysa qaamid maartay ka masaakhidada ay mar walba ka celaysiisa ninkeeda mid shanaad mid lixaad waxaan ri waa kuwa mar walba qubuurta bal laga kalayo qabriyada booqda kuwa toddobaad naaxiyaad qayla meedka ku qayliya meedka maartay 24 saac ku qayliya midda sideed meemre waxaan naamisa waashima waa mid maartay xirimaha kuwa xiira kuwa durta taatuuga kuwa timaha xiriiriya saddex kuwa maartay afraad maartay mutafallijaadka ilkaha durta ilkaha samaysta ilkaha fanax u samaysa aan jirin kuwa shanaad midda shanaad nimankooda ka cadhaysiya midda lixaad kuwa qubuurta booqda kuwa toddobaad naaxiyaadka meedka ku dul oo baroorta qayliya midda sideedaad kuwa mutabarrijaadka ah ee timahooda kor u taaga sidoo kalena maartay ilaahay tabaaraka wa taala ragga banaanka isugu soo bixiya si maartay ilaahay ugu cadhaysiiyaan ilaahay naxariista ayaa ku dhawaxnaarto kuwa sideedaad midda sagaal muxallila midda maartay intay ninkeedii furay oo saddexdii ka dhamaatay nin kale u tagtay ee tiraaday ninkaygi waan rabaa inaan ku noqdo ii xalaaleen ninka u xalaaleynaya iyo iyada la xalaaleynayaba ilaahay naxariista ayaa ku dhacda midda tobnaadna waa midda shabahada ragga isku ekaysiisa ragga dharka ragga xirane codka ragga iska raadine dhaqanka ragga dhaqanka dhigane ilaahay tabaaraka wa taala ayaa taasna nacalada naxariista ilaahayna waa ka fogeeya jannana ma uriso waa midda tobnaad tobankaas arimood walaashayda muslimada ahay iska ilaali ha ku cadaab gelin ilaahay naxariista ha ku waayin ara ilaahay ha ku kasfan waa tobanka arimood waa tobankan waxay u badan yihiin in abuurka ilaahay la bedelo qurux ilaahay ayaa dumarka siiyay ilaahay ayaa sida u qurux badneed u abuuray abuurka ilaahay kugu abuuray ayay ninkii kugu jeclaadana kugu raaci kii kalena uu kaaga tagay calafkaagana ilaah baa qadaray laakiin ilaahay naxariistiisa inaad ka fogaato darteed wax ilaahay uusan kuu banaynin ha samaynin hana la imaanin naarna ha ku gelin gabadha muslimada ilaahay ayaa sharfay oo karaameeyay xuquuqdeedana ilaahay ayaa cadeeyay waajibaadka laga leeyahayna ilaahay baa cadeeyay waxa nawaahida laga reebana waa ilaahay tabaaraka wa taala inoo sheegay iska ilaali walaashayda muslimada tobankaas ha ku dhicin si aakhiradaada iyo adduunkaaga u badbaado diinta ilaahay ha inoo macaaniyo jidka nabigana Allah mariyo ayna wada mariyo dhamaanteena intaan muuqaalkiina hay ku kulmi doono waa walaalkiin maxamed aamin leh falan noo subscribe garee noo like garee muuqaalka walaalada iyo asxaabtaada la wadaag wassalaamu calaykum